وعنا وناكسنا قيارتها وذا أنكو صاحبنا يعيد الكيمبا ميلو البوا جوكتان وحاد لنا وقت قايدين وعنادو لما أنتم بموقالك اللي يقرأي عيد والبوا موقالك اللي يقرأي سبحان الله سبحانه وتعالى أنك قبرينا وموريه اللي ده إلهي نوسى لا إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد وبركة يا أنت أولادون كان إلهي أولاد باري هاسي أنت جوردون كان جور وناكسنا المستقبل وناكسنا يبوين هاسيو خوف البوا موقالك ليك تكو قبتها سينا شرقرية وحرب سبحانه وتعالى أنك قبرينا مال الدنيا يسفلين إن إلهي سبحانه وتعالى إنه سيا دنبي والد كودنا بولا فجنة الفردوس لعلان إلهي وكعزوما حاسدك وحن لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود بين يهوك يقصار إلهي إذن كيس وعند مانتنا الله سبحانه وتعالى أن وديسنا إنه فرج غير قبل إلهي ونوفرا إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي سبحانه وتعالى أنا وينوجر جارها سومالي ميلو البيع جوكتنا إلهي سبحانه وتعالى نصر جيسي جرجار كيسها سيو وحنيجي دون نور بحنا دي وجودا بقابك دقالي هنا ده لقاق على الشباب أفوليين ويركي هوتيل كإيلت حيب تليدو أيضا نفافين درادا أي صوب حسي نشقدا دقالي هنا ده لقاق على الشباب أي جيستين ونشقدا أي أديك صدين حلقة ويرك أي جيسان ين ونشقد عجيبة kaamirooyinka qarsoon ee ku yaal xeebta liido ayaa waxay duubeen qaabka weerarka uu dhacay ayadoona kaamirooyinkaasi ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo xarumo ganacsi ku leh aagaarka xeebta liido waxaana sidoo kale goobtaasi kaamirooyin casri ah ay ugu xiran yihiin hay'adda nisa oo wali aan soo bandhigin kaamirooyinkooda sirdoon ee goobahaasi ku xiran waxa ay duubeen intaan kaamirooyinka aan u gudugelin oo aan idin soo gudbin doona hadduu Allah awood leh uu saamaxo iyo waliba kaamirooyinka qaabka casriga wax ay u duubeen waxaan eegi doonaa qaabka weerarka uu dhacay waliba raggan ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka geystay halkaasina ku dilay dadka badan kuwa kalena ee ku dhaawacay qaabka ay u soo galeen xeebta liido oo ah goob amnigeeda si weyn loo adkeeyo jagboontiyo badan ay ka horeeyaan ragga weerarka geystay waxa la sheegay inay ka soo galeen xeebta liido gaar ahaan hoteelka Ilid jagboontiga dhaca dhanka marinaayada halkaas oo fadhiisin ay ku leeyihiin ciidamada booliska kuwaas oo lagu talagalay in jagboontigaasi amnigeedu ay sugaan si aysan qaraxyada u soo galin dhanka xeebta liido tirada ragga weerarka geystay waxa lagu sheegay inay ahaayeen ku dhawaad ilaa 5 qofood waxaase la sheegay in gaariga ay wateen dhowr mar halkaasi uu ku yimid ninka darawalka ah ee isqarxiyay kaas oo la sheegay inuu isticmaali jiray kaar ay leedahay hay'adda nisa oo magaciisa iyo sawirkiisa uu saaran yahay gaariga bareedada ayaa la sheegay in dhowr mar ay timid aagaarka hoteelka Ilid waxa jirin wax shaki ah oo gaarigaasi laga qabay waxaana la sheegay in maalinta qaraxa uu dhacay uu soo qaaday ku dhawaad 4 qofood oo ku libisan diriiska ciidamada booliska kuwaasi oo aysan ka shakinin ciidamadii booliska ee ku sugnaa aagaarka goobta ama ku sugnaa goobta jogboontiga ah kuwaasi oo hore u wajeeqaanay qofka isqarxinaya gaariga watay maadaama dhowr mar u sheegtay in hay'adda nisa uu ka tirsan yahay waana midda keentay in habacsanaanta ay sameeyaan ciidamada booliska ragga la socdanay dhamaantooda waxay labisnaayeen diriiska ciidamada booliska Soomaaliya dareen badan muusan galin ciidamadii booliska ee ku sugnaa jagboontiga Mirinayo waxayna si sahal ah u soo daayeen gaariga waxyaabaha qarxa uu saarnaa iyo waliba ragga weerarka ka geystay hoteelka Ilid gaariga bareedada aad arkaysaan waa gaariga weerarka lagu fuliyay isla markaana uu isku qarxiyay qofka isqarxiyay waxaana la sheegay in gaariga sida u jeedaanba inuusan lahayn wax taarga wuxuuna sidoo kale uu leeyahay muraayado bensal ah taas oo ka dhigan in gaariga ay saaran yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxa Muqdisho gaariga bensalka ah isla markaana taarga la'aanta loo yaqaan inay wataan saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga waana qaladka ugu weyn ee jira maadaama ciidamada ammaanka aysan qaadanin wax taarga ah waxaana taas ay keenaysaa kuwa isqarxinaya iyo waliba kuwa weerarka geysanaya ayakana inay adeegsadaan gawaari bilaa taarga la'aan si wax raadraac ah aan loo sameeynin isla markaana aan loo aqoonsanin haddii gaariga isqarxiye taarga uu lahaan lahaa waxa la ogaan lahaa qofka taargadaasi ku qoran iyo waliba qofka daminta ka ahaa taas oo naqal lahayd raadraac lagu sameeyo halka qarax laga soo abaabulay iyo waliba cidda fududeysay gaariga bareedada markuu yimid aagaarka hoteelka waxa la sheegay inay ka degteen raggii waday diriiska ciidamada booliska ee gudaha u galay hoteelka waxaana la sheegay in ay sameeyeen waxyaabo badan oo aysan ugu shakineenin ilaalada hoteelka kuwaas oo fawjignaan dheeri ah muujin jiray waxayna u qaateen ilaalada hoteelka in raggan ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska isla markaana ay sugayaan mas'uul ka tirsan
tirsan dawladda oo ku jira gudaha hoteelka Elite waxaana ilaalada hoteelka waqtigaasi wixii ka dambeeyay markuu shakiga ka baxay kadib way isdhigteen taas oo keentay in gudaha si sahal ah ay u galaan raggan waday diriiska ciidamada booliska kana tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka ku fuliyay hoteelka Elite sida kaamirada ee muujinayso ku dhawaad muddo saacada ayay aagaarka hoteelka ay joogeen kadibna waxaa dhacay qaraxa waxayna sidoo kale qaraxa kadib ay gudaha u galeen hoteelka ayagoo xilligaasi iska dhigayay in ay badbaadinayaan mas'uulka ay la socdeen ay ku jiray gudaha hoteelka halkaas ayay ka bilaabeen dilalka ee u geysanayeen shakhsiyaadka iyo waliba dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka Elite dawladda Soomaaliya ayaa wali wada baaris ku aadan qaabka qaraxan uu u dhacay maadaama halkaasi aan laga filaynin qarax iyo sidoo kale weerar toos ah waxaana dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nisa ama gaagal ee la naqatay qaabka sahlan ee weerarka uu dhacay inkasto kaararka nisa uu isticmaalayay darawalka isqarxiyay weerarkii koowaad fuliyay taliyaha booliska Soomaaliya ayaa xalay xilkii ka qaaday taliyihii saldhigga booliska ee degmada Cabdilcasiis Axmed Baashale waxaana lala xiriiriyay inuu sameeyay habacsanaan xagga amniga ah taas oo keentay in si sahal ah hoteelka muddo ay u qabsadaan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay xirtay dhammaan dhalinyarada ka tirsanaa booliska ee ku sugnaa jagbontigi ay ka soo galeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee Merinayo kuwaas oo la sheegay hadda in xabsiga ay ku jiraan isla markaana su'aalo la weydiinayo waxaana sidoo kale warar kale oo aan helnay ay sheegayaan in kaamirooyinka nisa ay ka heleen macluumaad dheeri ah oo intaan ka baxsan kuwaas oo aan wali xogtooda aan helin laakiin haddaan xogtooda helno waan idin soo gudbin doonaa macluumaadka nisa ay heleen ee ku aadan shakhsiyaad kale oo kaalmo ama garab ku siiyay kuwa weerarka geystay dhammaantiin ku soo biira beejkeena sidaad u heshaan macluumaadkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya